kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada muuqaalkeena qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka oo howlgallo kala duwan oo ka dhan ah kooxda al-shabaab ka wada deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ciidanka dawladda wadanka Turkiga oo markii ugu horeysay howlgallo culus ee dagaal ka dhan ah kooxda al-shabaab ka fuliyay deegaanka Jabadgudane oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe wararkii ugu dambeeyay iyo sidoo kale xog dheeraad ah oo laga helayo ciidamada wadanka Turkiga oo ku biiray howlgallada iyo dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab ayaa sidoo kale muuqaalkan aad ku daawan doontaan qodobada kale aynu idin soo gudbin doonana waxaa sidoo kale markaasi ka mid noqonaya gobolka Hiiraan waxaa ka bilowday abaabul dagaal oo ka dhan ah kooxda al-shabaab ciidamada militariga Soomaaliya ayaa waxay isku diyaarinayaan in deegaano iyo degmooyin muhiim ah oo ka tirsan gobolka Hiiraan in dhawaan laga saaro kooxda al-shabaab dhaqdhaqaaqan iyo halka uu sida gaarka ah haatan uga soconayo ayaan sidoo kale muuqaalkan idinku soo gudbin doonaa marka hore soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 27 bisha koobaad ee Janaayo ee 2026 haddii aynu ku bilowno howlgallo culus oo ka dhan ah kooxda al-shabaab ayaa waxay ka soconayaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe deegaano hoostaga degmada Warsheeq ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaana howlgalkan xoogiisa uu ka soconayaa waxaana sidoo kale wada ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya howlgalkan ayaana waxa uu yahay mid ka duwan kuwii hore ciidamada ayaana waxay bilaabeen dardargelinta iyo dagaalka guud ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab kaas oo laga fulinayo goobaha istiraatiijiga ee muhiimka ah oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ciidamada ayaana sidoo kale mid ka mid ah howlgalladii ugu cuslaa waxay ka fuliyeen deegaanka lagu magacaabo Jabadgudane oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe waxaana halkaasi al-shabaab looga dilay in ka badan 120 oo ka tirsan al-shabaab saraakiisha ciidamada militariga Soomaaliya ayaa sidoo kale waxay shaaciyeen in uu wali uu soconayo howlgalka iyo dagaalka guud ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab kaas oo laga fulinayo deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe sida markaas lagu sheegay warka ka soo baxay dawladda Soomaaliya wasiirka wasaaradda difaaca dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa isaga waxa uu shaaciyeen ka badan 120 xubnood oo ka tirsan dagaalyahanada kooxda al-shabaab in lagu dilay dagaaladii cuslaa ee markaas ka dhacay deegaanka Jabadgudane oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ciidanka militariga Soomaaliya iyo ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumandoska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgalladan xoogooda waxay ka fuliyeen deegaano iyo degmooyin muhiim ah oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan Jabadgudane howlgalka markaas laga fuliyay Jabadgudane ayaana waxa waa mid culus mid ka mid ah qasaare ugu cuslaa ayaana xubnaha ka tirsan kooxda al-shabaab waxa lagu gaarsiiyay dagaalka ka dhacay deegaankaasi iyadoo sidoo kale tani ay markaas ay muujinayso in ciidamadu ay si guud ay ugu diyaar garoobeen dagaal guud iyo howlgallo ka dhan ah kooxda al-shabaab dhaqdhaqaaqa guud ee ka soconaya gobolkaasi halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa waxyaabaha ka soo kordha ee markan haddii aynu eegno ciidamo ka tirsan dawladda wadanka Turkiga ayaa markii ugu horeysay waxay ka qayb qaateen dagaal guud oo ka dhan ah kooxda al-shabaab ciidamadan ayaana howlgalkan waxay si gaar ah ay ugu fuliyeen deegaanka Jabadgudane oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe saraakiil ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in ciidamada wadanka Turkiga ay qayb ka ahaayeen dagaalkii guud ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab kaas oo laga fuliyay gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan Jabadgudane ciidamada wadanka Turkiga oo wata gaadiidka gaashaaman ayaana waxaa la shaaciyay in howlgalkan ay si toos ah ugu biireen ayna qayb ka ahaayeen dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab iyagoona sidoo kale ka qayb qaatay khasaaraha markaasi la gaarsiiyay kooxda waxaana ay sidoo kale ay hagayeen howlgalkan taas oo markaasi si fududeysay in khasaare lixaad markaasi la gaarsiiyo xubnaha ka tirsan kooxda al-shabaab dagaalkii ka dhacay Jabadgudane waxa waa mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa sidoo kalena al-shabaab dhowr jiho looga weeraro deegaanka Jabadgudane iyadoona sidoo kale goodoon halkaas lagu geliyay milishaad badan oo halkaas ku sugnaa sidoo kale isku diyaarinayay in ay weerar ay ku qaadaan ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa laga hortagay waxaana sidoo kale inta aysan weerarka geysan koor iyaga lagu weeraray goobtii ay markaas ay ku sugnaayeen sidoo kalena waxa lagu gaarsiiyay khasaaro xoogan iyadoona sidoo kale tani ay markaas ay muujinayso in dawladda dhexe Soomaaliya ay markan u soo jeesatay in la sii laba jibaaro dhaqdhaqaaqa iyo dagaalka guud ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab dawladda Turkiga ayaa waxay door muuqda oo firfircoon ay ka qaadanaysaa dagaalka lagu jiro kooxda al-shabaab ee xilligan markaasi ka soconayo gobolada dalka
sidan oo kale toddobaadkii hore ayaa dagaal culus oo ka dhacay deegaanka Kudha oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose al-shabaab waxaa looga dilay in ka badan 250 xubnood waxaana sidoo kale tan looga dhaawacay tiro kale iyadoona jabkii ugu badnaa abid kooxda lagu gaarsiiyay uu noqdo deegaanka Kudha ee ka tirsan gobolka Jubbada Hoose kooxda ayaa weeraro dhowr jeer markii hore waxay ku qaaday Kudha waxay la wareegtay gacan ku haynta deegaankaasi laakiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka markaas daraawishta maamul goboleedka Jubbaland oo isgarabsanaya ayaa mar kale waxay weerareen deegaankaasi waxaana ay go'doomiyeen deegaanka Kudha gudahayna sidoo kale u galeen xubnihi ka tirsan kooxda al-shabaab goobtaas ayaan inta ugu badneed lagu duqeeyay qaar firxad ah ayaana sidoo kale dhulka hoodka ay ugu tabatageen ciidamada kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale ciidamada daraawishta maamul goboleedka Jubbaland iyadoona sidoo kale dagaalkaasi uu ahaa midkii ugu xumaa ee kooxda markaasi khasaare lixaad ka soo gaarto waayadani shabeellada dhexe oo yana jabadgodana in ka badan 120 ayaa looga dilay kooxda labadii toddobaad ee ugu dambeeyay al-shabaab ayaana waxa markaasi la gaarsiiyay mid ka mid ah khasaare ugu cuslaa sida markaasi dawladda federaalka Soomaaliya ay shaacisay haddii aynu ka gudubno halkaasi gobolada Jubbada Hoose iyo shabeellada dhexe markan haddii aynu eegno Hiiraan abaabul dagaal oo ka dhanaa kooxda al-shabaab ayaa xilligan waxa uu ka soconaya gobolka Hiiraan abaabulkan ayaana waxa uu yahay mid ay ciidanka militariga Soomaaliya gaar ahaan taliska qaybta 27aad ee wadaan waxaana sidoo kale dhulka howdka ku sugan taliyaha qaybta 27aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Cali Axmed Xaashi Cali Cagi ayaana sidoo kale waxa uu door firfircoon uu ka qaadanayaa howlgallada iyo dagaalka guud ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab waxaana xilligan soconaya abaabul dagaal duleedka degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayayna ciidamadan ay ku sugan yihiin waxaana maalmaha soo aadan la qorsheynayaa inay qabtaan degmooyinka Maxaas iyo sidoo kale Moqokuri oo ah goobo istiraatiiji ah oo kooxda al-shabaab ay markaasi bartamii sanadkii hore ay kala wareegeen ciidanka militariga Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka oo muddo 3 sanadood ah la dagaalamayay kooxda al-shabaab haatan ayaana mar kale waxa la qorsheynayaa in deegaanadaasi laga saaro kooxda al-shabaab iyadoo la diyaariyay ciidamo kumanaan askari ah oo haatan ku sugan duleedka degmada Matabaan oo ka tirsan gobolka Hiiraan howlgallada markaasi Hiiraan ayaana waxay yihiin kuwa ka duwan Hiiraan waa halkii ay ka bilowdeen markii hore dagaalka guud ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab sanadkii 2022 kaas oo guulo waaweyn looga gaaray kooxda al-shabaab mar kalena dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay qorsheynaysaa in howlgallo guud ay ka bilowdaan gobolka Hiiraan gaar ahaan bariga waxaana sidoo kale degmooyinka Moqokuri iyo sidoo kale Maxaas ay noqon doonaan goobaha inta badan ay howlgalkan ciidamada ay markaasi ay ka fulin doonaan kooxda ayaana sidoo kale waxaa la shaaciyay maalmihii ugu dambeeyay Moqokuri iyo sidoo kale Maxaas ay ku soo daabulhayeen maleeshiyaad badan oo ay ku doonayaan in ay deegaanadaasi ay ku difaacdaan sidoo kale ay ka hortagaan dhaqdhaqaaq kasta oo kaga yimaada dhinaca dawladda federaalka ee Soomaaliya kooxda ayaana xilligan waxay markaasi wajahaysaa mid ka mid ah jabkii ugu cuslaa iyadoo saraakiil badan laga dilay muddooyinkii ugu dambeeyay waxaana sidoo kale tani markaasi la soo warinayaa in kooxda dhexdooda uu markaasi uu ku dhacay niyajab iyo sidoo kale khasaaro lixaad leh oo saraakiil muhiim ah sidoo kale dagaaladan ay ku waayeen haatan ayaana mar kale waxa bilowday dagaal guud oo ka dhanaa kooxda al-shabaab Hiiraan ayaana sidoo kale markana haddii laga bilaabo dagaalka waxa uu noqon doonaa goob istiraatiiji ah sidoo kalena lafdhabar u noqota howlgallada iyo dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab taliska qaybta 27aad uu hogaaminayo Cali Cagi ayaana howlgalkan si wadajir ah markaas u fulin doona ujeedada iyo hadafkuna waxa uu yahay in kooxda markaas laga saaro goobaha istiraatiijiga iyo sidoo kale goobaha ay sida gaarka markaasi ay ugu sugan yihiin howlgalka dhawaan ka bilaabanayo gobolka Hiiraan iyo abaabulkiisa oo socda halkan ayaan idinku wadaagi doonaa iyo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka soconaya gobolka Shabeellada Dhexe